sheekhow meesha wax dhaqaalaha ma lagu qabaa inta un baa loo tegay markii horeba diin looma tegin waxoogaa guriga loo tegay ma lagu haystaa jawaabteedu waxa weeye nidaamka waddanka ka jira ee dhaqaale waa nidaamka la yidhahdo annidaamu ra'samaali hanti goosad waay hanti goosadkuna caadatan wuxuu u qaybiyaa dadka 3 dabaqo dabaqada ugu sarreysa waa dabaqada hantiilayaasha ah oo sharikaadka waaweyn leh oo waddanka dhaqaalihiisa gacanta ku haya cid walbana ayagay u adeegtaa dabaqada labaad waa dabaqada ayaga u shaqaysa ama waxoogaa uu bartay buu ugu shaqeeyaayo xafiis buu fadhiyaa ama ma ahee wuu xamaalaa oo alaabta culculus iyo warshadaha iyo culayskooda iyo waxaasaa lagu raraa waa dabaqada labaad wey dabaqada saddexaadi waxa weeyaan waa dabaqa noloshii la qabsan weyey doontii noloshay ka dhaceen waa qolada meeshan aan ka nidhaahno shokora xaggaana soomaaligana aynu dhihi jirnay ciyaal derbiga waa kuwo macnaha waxa weeyaan ayagu ay dantoodu tahay uun inay 24 saac sarqaansanaadaan mukhadiraadka iyo xashiishta iyo waxaasay macnaha waxa weeyaan maaragtay daroogada iyo waxaasay isticmaalayaan dawladduna waxoogaa cayd ah oo daruuriyaadkooda iyo guriga iyo nolosha iyo waxoogaagaasa la siinaya loo soo tuuraya qoladaasi marka nolosha kuma tirsana iyagu qolada dhexe bay marka u badan yihiin dadkii meesha tegayoo weliba qolada dhexe qaybtooda dambe oo dadka xamaala ah way xamaalaan ha ahaatee ha xamaaleene waxoogaaga soo galaayi tacab iyo rafaad buu kusoo galaa tacab iyo rafaad soomaali baan wahsi ku naqaanay meelahaasaan waxaan ku aragnay soomaali markuu waagu baryo salaada subax uu tukado kabaha uu gashado casarka kadib iska furay si uu wax u xamaalahayo u kala dejinayo ha meel taagtaagnidii iyo taqriiban shaxaadkii iyo meesha ma jirto haddaadan adigu isnoolaynin bas waay sidaa unbaad doonta uga dhici marka taqriiban nolol kadxi iyo rafaad iyo waxoogaa lagu soo saaray bay ku nool yihiin sidaa ay tahay haddana waxoogaagaa ay soo saareen ama caydda loo siiyey oo kabmada lagu siiyey intaa yartaa haddana intaasaa weli la hunguriyeynayaayo nimankii ku shaqaystay inay haddana dib ugu noqotaa la rabaa ha gurigii kiradiisii telefoonkii biilkiisii korontada biilkeedii yani gaaskii raashinka lagu karsanayey baabuurkaaga yani waxa weeyaan shidaalkiisii intiiba ayagay dib ugu noqotay marka yani sida dameerkaaga inta lagu shaqeeyo oo lagu xamaalo waxoogaana soo looma tuuro nidaamkaa waxay u dejiyeen markaad fiiriso waxay isku beesgareeyeen ruuxu wuxuu shaqayn karo iyo kharashka uu isticmaali karo inaysan waxba uga soo hadhin bay marka qoondeeyeen maxaa yeele hadday wax kaaga soo hadhaan ood wax meel dhigto haddaad wax meel dhigto berrita waxaa imaanaysa inaad ka kaaftoonto sooma oo meelahan iyo intaad ka timaado afrika iyo ganacsi bilowdo oo nolol xora bilowdo taasaad imaani sooma marka waxay rabaan inaana xadhiggana aad ku xidhnaato ayaga aad u shaqayso subaxdiina u kalahdo yani waxoogaagaana ayna noloshaadu dhaafin saas maana tii intaa ahayd walba geela hebel kuwa dabayaal baanu sii dabanaalahay kuwaasaynu inaguna sii dabanaalla kuwaas intaasaan sii dabanaalla ka ugu rooli waa kuwa seefgareeya ninka macnaha qaraabo goyska ah waxaa laga yaabaa inaad tidhahdaan qolaa jirta yani meelahan xoola la timaada oo waxoogaa dhaqaalaha iyagoo gacan qabsi wata la yimaada marka sheekhu se waxu jiraan jawaabtu waxa weeye ninkaasi ama qaraabo goys bu ahaa markuu xaggaa joogay oo $50 lagama heli jirin ama ma ahee wuxuu ka kasban jiray xaaraam oo khayaanu wax ku maamuli jiray asagoo shaqeeya buu u sheegi inuusan shaqaynin caydna wuu ka qaadan yani waxa weye waxoogaana wuu shaqaysan ama xaaraan buu isku soo abaabulay nin ilaahay u naxariista waa jiraayo faraj u furay nin laakiin aqlabku meeshu meel wax laga keeno ma aha meel wax laga dhigana ma aha noloshaasi wareegaysa ee daruuriyaadka iyo asaasiyaadka nolosha gurigii iyo cuntadii iyo intan meelo badan lagu haysto intaa unbay meesha ku hayaan waa aqlabkoodii say u badan yihin macna oo haddana rafaadkaasi ku hayo daliil waxaa kuugu ah rag fara badan markii aad tidhahdo war meesha maad ka guurtaan oo dhibkan hadduu idinku haysto afrikaba waxoogaa waa lagu haystay nolole maad iska tagtaan waxay kuleeyihiin 10 ilmood ama 5 ilmood baan meesha ku hayaayo 20 sano u joogay ama 10 sano tigidkii waxaan kaga bixin lahaa baan haynin balofir 10 sano u jooga 20 sano caruurtiisa wuxuu tigid uga dhigo kusii qaadana ma hayo hadduu rabana waa inuu daynto marka waa xaqiiqo jirta xaqiiqo inaynu la tacaamulno u baahan wey macnaha sidaa daraaddeed haddii arrinku marka sidaas yahay oo nolol darradaasi meesha ka jirto dadku may ka soo cararaan waa su-aal iyaduna imaan karta meel kadeedkaas oo dhan ka joogo dadku may soo cararaan jawaabtu waxa wey qaar horta waa soo carareen oo waa inala joogaan
in badan oo ilaahay waafajiyo soo carartay waa jira carruurtoodii la soo carartay tan labaad weeyaane dadku waa laba nin waxa weeyaan waa nin markuu meesha tegey wuxuu meesha la tegey iyo meesha waxoogaaga yarkay isku hagaagsanay meesha yaalle yani waxa weeye yani meeshan aan oolin waxoogaaga adduunyada markuu tegeyba yani iyadaas ku xasilay aakharo iyo cadaab iyo diin iyo akhlaaqan ayna waxba ka gelin yani taqriiban lax dhukan bay Soomaalidu yidhahdaan col iyo abaaba moog qolo waa qoladaas wax alla wuxuu og yahay oo aan gurigaas iyo waxoogaaga caydha ah iyo baabuurka aan ka ahayn ma jiro qolo waa qoladaas waa in badan say yihiin waa qolona waa qolo waaqicay ku soo dhexdhaceen iyo khatartay ku dhex jiraan dareemaya oo aad iyo aad u qoomamoonayo aad u murugsan kuwaasina inay soo cararaan waxaa u diidan 3 arrimood mid ka mid a midka koowaad weeyaane ragga qaarkii carruurtoodii baa meesha ku waaweynaatay carruurtoodii ama iyagoo waaweyn bay geeyeen mar hadday carruurtaadu meesha ku waaweynaatana adoon qancinin ma kaxayn kartid carruur waxoogaa la daajiyeyna saad ku qancisa waa adagta carruurtii waxay isu sheegeen kuwaa meelahan la keenayoo malaha dib loo celiyey qaar la siray baa jiro carruurta soo siray oo dalxiis baan tegayna inta la yidhi way isu sheegeen carruurtii waxay dhaheen dalxiis baa la isku kaxeeyaa markaasa africa la isku celiyaa dalxiis kasta haddaad u sheekaysa xataa ilmahaagii waa yaqaana inaad sirayso ragga qaarkii marka kadeed wuxuu ka haystaa carruurtii kama imaan karo oo keligii ma imaan karo ayagiina inuu soo kaxeeyo diiday iyagana go-aan kale yani taqriiban markaan tabar hayeyna tala ma haynin haddoon tala hayana tabar ma hayo ta ninka haysata waa midda ninka labaadi waxa weeye isagii baa hayikacsan inuu hayaamoo noqduu doonaya laakiin xaaskii baa lagu imtixaanayo islaantii baa isagana yani waxa way lugta haysa ma tegaynay leedahay waa afrika iyo balaayadeedii baad nagu celin asaguna meel u dhaqaaqa male xaaskii kama imaan karo carruurtii kama imaan karo yani waxa weye waa inuu ku dulbaktiyo ta saddexaad waa gabadh wanaagsan haweeney wanaagsan oo wadaad awey oo carruurteediiyo waxan ay timid aada uga danqanaysa laakiin nin xun baa lagu ibtilay iyadana oo iyadii baa la war ina qar war inkaari kugu dhacday ma waxaanaynu fiirsan karnaa markaasuu leeyahay xageed aad inkaari kugu dhacday africa waa gaaje mabda ay rumeeyeen dadkii meesha hadday tageenna waxaaba yani ka mida tala saarashadii ilahi baa meesha ka baxday in ilaahay la tala saarto mabaadidaas oo dhan baa dhammaato waxayna iska dhaadhiciyeen dadku africa inay tahayba meel wixii galaayo uusan ka soo noqoninba waa lagu baktiyaa war inkaaru idinku dhacday intaad intan la ekaanayseen soo africa maydaan ku barbaarin ha kuwii ka soo guuray oo africa yimid inay ka raystaan may uma darsanin alxamdulilah bay ku hayaan nin alla nin ka soo guuray saas way macana qaar badan marka waxayba rumeeyeenba meeshii laga tegay iyo dhulkay ka tageen yani waxa weye bay balaayo u haystaan ma dhul shisheeyaa marka wax ku tari soomaalida waxay yidhahdaan saddex arrimood kuma daryeesho yidhahdaan 3 kuma daryeesho waana xaqiiqa waxay yidhahdaan dumaal kuma daryeesho doqonino kuma daryeesho dal shisheeyana kuma daryeelay dhahan caws jiilaan waa lama huraan ama ha kuu khadhaaraato ama meel god haddii la galaan laga soo baxayna ha noqoto caws jiilaan waa dhulkaaga saas maana waa lama huraan isagoo maad kusoo noqon tala saarasho ilaahi subxaana watacaala iyo kalsoonidiisa marka yani in lagu qaabilay u baahan tahay waxyaalahaasi marka waa xaqaa'iqda meesha jirta wa waktigaa dhammaaday tacliim ma leedahay haddaad idhahdaan waxoogaa dadka waxaa ugu roon dadka waxbarbarta laakiin soomaali inta waxbarata 100% ma aha khaasatan australia oo kaleeto australia oo kale waxaa ka jira dawladdu dayn bay siisaa ruuxii waxbaranaya weliba dayn aan dulsaar lahayn baa la ii sheegay yani ninkii ii sheegay baa kolley dadkii ii sheegay bay mas-uuliyaddu saaranta laakiin dayn aan dulsaar lahayn bay ii sheegeen laakiin soomaalida inta waxbarataay waa faraku-tiris maxaa yeelay balaaya africa ka soo dhawaaqaysa isaguna walaahow buu ku jiraa soomaali waa wareersan tahay inta waxbarataay marka waa faraku-tiris xataa meelaha jaanisyada waxbarasho ay ka jiraan ayib diini ma ka jirtaa diini waa intaan idiin sheegay wadaado dhalinyaro oo ordahayo oo qayliyahayo waa jira wax daba qabta isle laakiin badweyn baa lagu dhexdhacayo iyadana waxay baajin karaan waa iska yaryahay xaqaa'iqaasa marka meesha taala war iyo murtidii waxa weye dadkii meeshaa tegey mustaqbalkoodu waa majhuul khaasatan dadkii yaryaraaya ama meesha lagu dhalay ama meesha la geeyey iyagoo yaryar dadka laba mid mustaqbalka dad ilaahay intuu u naxariisto naxariis ilaahay ay ka daba tagto soo laabto waddan islaam kusoo laabto kaasi inay wuxuun u badbaadaan waa suurtagal kii laakiin meeshaa uun daysto oo halkaa loo daayaayey mustaqbalkiisu waa maxtuum markhaatina waxaa kuugu filan bulsho waxaa ka horreysay soomaalida
iyo bulshooyinka kulligood muslimiinta waxa ka wada horeeyay wadanka Australia bulsho islaam oo tagta waxa ugu horeysay nimanka leeyahay Afghaanistaaniinta ugu horeeyay oo waagi ay wadanka furanayeen qolyahan macna waxa weeye reer Yurubka bay la socdeen oo ciidamo u hayeen waa nimanka geela wadanka geeyay baa lagu yiri wadan yaani geel waxa iska jooga wadanka awsanillahi la ogaad ah nimankii noocaay Afghaanistaaniyiinta ay Afghaanka ahaa masahal masaajid oo masaajida wadanka kamida nin ayaga kamida ku arkimaysa odayaashiina waa geeriyoodeen waxay ku geeriyoodeenba caruurtoodiina waa 100 sano 150 200 sano caruurtoodiina gaaladaas ku darmadeen waxay ka tageen raad iyo aasaar ah masaajid meel ka dhisan oo ayagana sidii mesela waxa weeye yaani guryaha loo tago yaani hidiga dhaqanka lagu kaydo kale muusii ma leeyahay yaani meelahaas oo kale iska noqday odayga ugu dambeeyay maraha masaajidka markuu ka geeriyooday gacantiisa uu ku jiro si dhimanay buu dawladda hoose gacantooda galay oo yiri yaani waxa way ku wareejiyay masaajid noocaas oo qadiim ah ba aasaartoodii ka dambeeyay caruurtoodii aaway waa gaalo cadcad ku jiraan marka waa masiir maxtuum away ninkan ilaahay u naxariisto subhanahu wa ta'ala oo dhulka uu soo dhaafinin oo arrintiisu waa iska cadiy marka dadka loo duceeyo dadkaas war murtidi waxa weey dadka loo duceeyo ninkii ku socdoona iska baaj ilaahay tala saarto subhanahu wa ta'ala risqa ilaahay baa bixiye meel alla meesha joogtaba waa kuugu imaa wixii ilaahay ku qoray subhanahu wa ta'ala ilaahay lagu kalsoonaado kaydka iyo dhagarta markuu rabbi aad uga soo sheekay gaalada muxuu yiri halka muxuu ku tilmaamay in tattaqu wa tasbiru samaa'il la yadurrukum kayduhum shay'a hadaan alla ka cabsi iyo sabir iyo adkaysi kaashataan dhibkoodu idin dhibi maayo barbarso dhagartoodu idin dhibi mayso marka dhaqanka diinta oo taqwa ah iyo sabir iyo adkaysi oo ninkii gaajaysan uu adkaysto waa la gaajoon jiray gaajadana waa laga bixi doonaa insha Allah ta'ala inna ma'al usri yusran barbar subhanahu wa ta'ala fud culayska safudeed baa ka dambeeyay war waa la dhargi doonaaye yaa la eedoobin oo macnaha waxa weeyaan yaani waa la doogoobi doonaaye yaa la dacroon oo dadow yaa la gaaloobin oo diin iyo aakhira yaa la iisan meeshan tadaata lagu socdaay ee adigu wax ka doonayso waa meel lagu khasaari ribixdaada uu rabtaa yaani waxa weey adoo ribix raba raasamaal ma lumay Soomaalidu tiraada adoo ribix raba faa'iido raadisa raasamaalkii ma ka lumay raasamaalku waa diinna meesha loo tagi maaye wardado hal noolaado oo rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wal fitnatu ashaddu min al qatl hadii lagu dilay hatta ina diintaada ka fitnowdo waxay ka daran tahay dilkay ka daran ina lagu dilaa dhaanta caruurtaadu inay gaasho u dhimataa dhaanta ayagoo iimaaniyo islaamnimo leh inay dhintaan adiguna dhimataa dhaanta laakiin gaalnimo iyo gaalo iyo wadankood iyo akhlaaqdood iyo mustaqbalkood wardada wax la isku haleyn karo ma